dalka Soomaali Suudaaneys saaxiibka bukaanka. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور معتز البشير مهدي عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ودكتور معتز أبشر عثمان. وحنا هاي دكتور كنت تخصصي حنونات ودنها هي هالبولياشة. وحنون ده شيء ودنك السودان. عشان نقول إحنا بنعمل الأشياء اللي بنعملها في الجسم، مفروض نوضح أولاً أمراض القلب، طبيعة أمراض القلب. waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybaha xanuunada wadnaha ee bukaanada qaangaarka ah. waxaana guud ahaan loo kala saaraa 3 qaybood oo kala ah: xanuunada xididada, xanuunada saameeya albaabada yaryar ee wadnaha qaybihiisa kala xiro, xanuunada saameeya murqaha wadnaha. 3daas qaybood mararka qaar way isla socdaan, mararka qaarna mid ayaa keena inta kale. waaxdana xanuunada wadnaha iyo halbowlayaasha waxay u kala qaybsamaan 4 qaybood, kuwaasoo kala ah qaybta koowaad ee bukaan socodka, qaybta labaad ee baaritaanada ee ECG echo oo sidoo kale aan ku bixino adeegga la socoshada wadnaha ee ECG oo 24 saac. الكاس لاب أو الكارديك كاثيترايزيشن لاب اللي هو اللي بنعمل فيه البروسيجرز. qaybta saddexaad ee cath lab-ka oo ah qaybta qaliimada lagu sameeyo wadnaha, anagoo sawirna halbowlayaasha wadnaha, sidoo kale u furno halbowlayaasha bukaanada ay xidhan yihiin halbowlayaasha waraabiya wadnaha. sidoo kale bukaanada u baahan waxaan u xirnaa bateriga wadnaha. qaybta afaraad ee u dambayso waa qaybta CCU ee bukaanjiifka u gaarka ah. bukaanada leh xanuunada wadnaha ama kuwa isbitaalka loogu sameeyay qaliimada la xiriira wadnaha. mahadsanidin. اسم أمراض القلب مستشفى الصومالي السوداني. شكرا لكم.